waxaan ku suganahay xeebta weyn ee magaalada Boosaaso maanta oo Jimcaha ay u soo dalxiis tagaan kumanaan qof oo ku sugan magaalada Boosaaso qaar ayaa u soo dabaaltagay xeebta weyn ee magaalada Boosaaso halka qaarkoodna ay banooniga ku ciyaaraan qaar kale ayaa dhankooda u soo dalxiis taga maalintan fasaxa si jawiga wanaagsan ee xeebta magaalada Boosaaso ay leedahay ay uga qayb qaadan lahaayeen maalinta fasaxa haddaba xeebta ayaa lagu qiyaasaa Puntland inay leedahay xeebta ugu dheer Soomaaliya markii saamiga Soomaaliya la eego maanta oo Jimcaha Puntland TV waxa uu kala qayb qaadanayaa bulshada reer Boosaaso sidii uga dalxiisi lahaa xeebta weyn ee magaalada Boosaaso oo ay dhankooda qayb aan uga qaadan lahayn maalinta Jimcaha ee fasaxa aan ula baashaali lahayn ula damaashaadi lahayn dadka reer Boosaaso qiyaastii magaalada Boosaaso xilligan waa 8:00 qiyaasta duhurnimo xilliga magaalada Boosaaso jawiga magaalada Boosaaso cimilo ahaan waxa lagu qiyaasaa in xilligan uu yahay kulayl balse bulshada reer Boosaaso xilli walba xilliga Jimcaha waqtiga fasaxa uu ka faa'iideysanaya waxay dalxiis tamaashaad iyo farxad u yimaadaan xeebta weyn ee magaalada Boosaaso anaguna maanta dareenkooda la wadaagi doona la ciyaari doona banooniga kala qayb qaadan doona farxadda maalinta Jimcaha magacaygu waa Musiis Maxamuud waxaan ku faraxsanahay TV-ga caalamiga Puntland inuu ka soo maanta noogu soo boqdo xeebta magaalada Boosaaso oo ay dhalinyaradu dalxiis iyo kubad iyo wax walba u yimaadaan aad baan ugu faraxsanahay maanta iyo aad ku ciyaartay kubad malka waran jawiga maanta iyadoo waqtiga Boosaaso uu yahay kulayl wallahi jawiga aad buu u fiican yahay ciyaar baan u nimaanaa xeebta aad baan ugu faraxsanahay jawiguna maanta wuxuu noogu sii farxad badan yahay maadaama uu soo boqday TV-ga qaranka Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Maxamuud Maxamed runtii maalinta Jimcaha waa maalin ka duwan maalmaha kale oo aan la mid ahayn waxa moodaa maalinta Jimcaha hadii la yiraahdo xeebta hal soo aad ama hal soo dalxiis tago inay maalmaha kale saad uga duwan tahay sidaad arkaysaan walow ay hadda xogaa waqtigu iska gabagabo dadkii ma garanaysaa iska kala tageen laakiin cabaara ka hor si wanaagsan xeebta loo buuxay hase hadda laftirka ayaa dhalinyaradu waxay u joogaan si saa'ida kulamo qurux badan halka lagu ciyaarayo halka waxa ku wada ciyaaraya naadigii BST naadigii Soweto kulan qiimo badan baana ka dhacay runtii dhalinyarada kale oo yarkaan maalinta Jimcaha waxa moodaa in la soo fasaxo oo yimaadaan dabaal iyo waxyaalo kale anaga laftirkayga ka saandos ahaan maanta waxaan u nimin aan ku caalamiiteyno magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud waa ka soo tagay waxa xeebta ugu soo tagay inaad dawaasho iyo inaan ku ciyaaro intii aan ku sugnayn xeebta magaalada Boosaaso aan kula dalxiisanay bulshada reer Boosaaso maanta xeebta waxaan la kulanay gudoomiyaha dhalinyarada iyo sportiska gobolka Bari Mustafa Abdirahmaan Majacse laftirkiisu maanta ayuu ka qayb qaadanaya damaashaadka xeebta weyn ee magaalada Boosaaso waad u jeedaan xeebta ayuu ka soo baxay isagoo ku soo dalxiisay ku soo baashaalay gudoomiyaha waa kan hadda ayuu la joogaa gudoomiye dareenkaaga iyo maanta ku aadan dabaashaad u timi xeebta xaqiiqdii waa maalinaad ummadda muslimiinta ay nastaan oo maalin Jimcaha kasta waxaan imaanaa xeebta maadaama aan xeebta diris lanahay oo xaafaddu tahay raxiis Boosaasadii hore waxaan u soo aadnaa kubad yar aan ku jimicsano iyo dabaal marka caafimaad ahaanna way ku fiican tahay baddu maadaama aan xeeb deganahay marka gobolada kale ee waxaan ku dhahnaa magaalada Dekedda oo magaalo xeeb population badan isugu yimaadaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa TV-ga Puntland oo soo booqday maanta xeebta magaalada Boosaaso ama beachka kubadda lagu ciyaaro ama lagu dabaasho marka aad baan idin mahadcelinayaa fursaddan qaaliga ah siiseen jamhuurka isugu yimaada xeebta magaalada Boosaaso magacayga Jaamac Saciid Jaamac Jaamac maanta maxaa xeebta ka soo doonay maanta xeebtu waa 4 bilood waan ka maqnaa maanta dalxiis baan u imid maadaama ay tahay maalin Jimcaha ah maanta maalin Jimcaha waaye oo u jeedaan farxadda naga muuqata runtii maanta maxay maalma uga duwan tahay maanta waa maalin la iska damaashaada intii waqtiyada kale waa la shaqeynaya waa Jaanis lama baxayaba laakiin maanta oo kale Jaanis waa la hayaa xeebta waa la imaanaya waa la damaashaadaya waa la cabaaya waa badda la galaya kubad baa la ciyaaraya magacaygu waa Xuseen Bilaa Ismaan maanta waxaan u imaanay Jimcaha badda ayaan damaashaad soo aaday goos ayaamaha kale waa ayaamo shaqo maanta oo xitaa maalin Jimcaha sidaa daraadeed maanta waxaan u imid xeebta inaan iska baashaalo kubad baan hadda ciyaarayay waxaas alxamdulillah dawladdeeda ayaa noo keentay inaan amni ku ciyaarno iyo baashaal intii aan ku sugnaa bulshada reer Boosaaso aan kula dalxiisayay xeebta weyn ee magaalada Boosaaso waxa sidoo kale aan ku arkay ama aan kula kulmay nin dhalinyaro ah Abdirahmaan waa nin dhalinyaro ah xaqiiqatan
gobolka Karkaar ayuu uga yimi sidoo ugu dalxiiso xeebta weyn ee magaalada Boosaaso bal dareenkiisa iyo safarka dheer oo ilaa gobolka Karkaar uu ka soo galay ban la wadaagaya Cabdiraxmaan bal dareenkaaga iyo magacaaga saddexaad ku bilaabay Ibrahim aad baa u mahadsan tahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Xudayfi si dadku ii yaqaanaan sidoo Ibrahim ka dhawaajiyay waxaan soo galay safar dheer waxaan ka yimid gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Waaciye boos wuxuu isu jiraa 170 kiiloomitir 170 kiiloomitir waxaad u soo goysay inaad ku dalxiisto xeebta weyn ee magaalada Boosaaso aad iyo aad 170 kiiloomitir waxaan gaari ugu soo kaxaystay inaan ku dalxiiso xeebta weyn ee magaalada Boosaaso markaad timaaday ka qayb qaadatay dalxiiska xeebta maxaa kugu la yaab ka badnaa aad ku aragtay xeebta weyn ee magaalada Boosaaso wallahi de waxyaabo aad u weyn baan ku arkay meesha kow waxa ka mid ah intaan ka maqnaa gobolka Bari aan ku sugnaa gobolada kale ee dalka sida Karkaar iyo Nugaal muddo 2 sano aan ka maqnaa gobolka Bari waxa ugu weyn oo aan arkay waxa ka mid ah duqa magaalada Boosaaso loo sheegay inuu xayndaab u sameeyay xeebta xayndaab kaas waa kow ila la yaabnaa xeebta weyn ee magaalada Boosaaso jimco walba waxay bulshada reer Boosaaso oo laftirkooda gobolada dalka qaarkood ay ka yimaadaan si ay ugu dalxiisaan xeebta weyn ee magaalada Boosaaso maanta Puntland TV laftirkiisu waxa uu la dalxiisay bulshada reer Boosaaso oo ku sugan gudaha xeebta weyn ee magaalada Boosaaso waa Ibrahim Maxamuud Yuusuf Puntland TV Boosaaso